Aroor qabow 2 Janaayo ayaa nin baaxad leh oo gashan gabood madow qabowgii ka soo galay hoteelka The President oo ku yaala magaalada Kansas ee gobolka Missouri ee cariga Mareykanka. Ishu durbadiiba waxa ay qabanaysay dhererkiisa iyo dhismaha jirkiisa. Haarada ku taalla foolkiisa iyo dhagihiisa qorofan ayaa ka dhigi karo nin feeriyaan ah. Wax boorso ah ma uusan wadanin ninku, balse si kastaba qol ayuu qabsaday isagoo codsanayay qol tilmaamo gaar leh oo ah in qolka gudihiisa uusan xigin jidka. Lacagtiina caddaan ayuu ku bixiyey, waxa uuna ku saxiixay buugga martida degan hoteelka magaca Ronald T. Owen oo ciwaankiisu yahay magaalada Los Angeles ee dalka Mareykanka. Wiilkii meesha ka shaqaynayay Randolph ayaa u kaxeeyey ninkii qolka 1046. Qolkii markii ay galeen, ninkii waxa uu jeebabkiisa ka soo qufay alaabo yaryar sida shanlo, rumay, daawada lagu cadaydo, wuxuuna saaray bartii fooldhaqashada intii uusan wiilka ka qaadanin furaha qolka. Durbadiiba ninkii hoteelka bannaanka ayuu uga sii baxay. Mar dambe oo isla maalintaasi ah, Mary Soptic oo hoteelka xaale ka ah ayaa gashay qolkii 1046 si ay u hagaajiso. Waxa ayna aragtay Owen oo aad u warwarsan oo qolka iftiin yar oo nal yar ka imaanaya, qolkiina hoos inta badan ka dhigay, daahyaduna u daysan yihiin, dhex fadhiya. Markii uu arkay gabadhii oo soo gashay ayuu intuu istaagay istoosiyey, isagoo sii baxayana u sheegay in ilinka oo furan ay isaga tagto marka ay qolka ka tagayso, waayo nin saaxiibkiis ah ayuu sugayay oo hadhow imaan doona. Wuxuuna ku adkeeyey in qolka oo furan ay isaga tagto, weliba ku celceliyey u sheegidda inaysan qolka xirin. Mary waxa ay qolkii ku soo laabatay 4tii galabnimo si ay shukumaanada u dhigto. Waxayna u timid Owen oo dharkiisa xiran oo dul saaran sariirta kuna dheegagan saqafka aqalka sidii qoraal aanan la arkaynin isagoo ka aqrinaya saqafka. Waxa ayna isha ku dhufatay gabadhii xaashi yar oo qoraal ku qornaa oo dul saarnayd miiska. Xaanshaduna waxaa ku qornayd: Don, waxaan soo laaban doonaa 15 daqiiqo kadib, isug. Iyada oo dareentay inay soodin dhaaftay ayay si aayar ah qolkii uga baxday isaga oo weli saqafkii ku dheegagan. Waxa ayna go'aansatay aroortii ka hor inaysan ku soo laabanin qolka. Markii aroortii dambe 3 Janaayo ay qolkii ku soo laabatay, waxa ay u soo laabatay qolkii oo kor ka xiran. Markii ay furaheedii shaqada ku furatay, waxa ay aragtay Owen oo mugdigii dhex fadhiya, daahyadii sidii ay u xiran yihiin, nalkii sidii uu iftiin yar u bixinaya, qolkiina uu ka dhigay hoos cabsi ah. Owen oo taleefon ku hadlayay kana muuqatay xasilooni darro oo hadba dhinac isu leexinayay ayaa gacanta u haadiyey gabadhii, uguna baaqay inay soo gasho. Gogashii iyo agabkii qolka ayay tirtirtay oo hagaajisay. Waxayna maqashay ninkan la yaabka leh oo leh: Maya, Don ma raba inaan wax cuno, gaajo ima hayso. Mar dhow baan quraac soo cunay, maya gaajo ima hayso. Gabadhii si degan ayay qolkii u xaaqday. Shukumaanadii ustaga lahaa inta ay qaaday ayay ka sii baxday qolkii, isagana tagtay Owen iyo taleefankiisa. Gabadhii Mary ahayd dhacdo kale oo la yaab leh ayay kala kulantay qolka 1046 markii ay wareegii nadaafadda ee galabnimadii ku soo laabatay. Waxa ayna maqashay 2 nin oo qolka ka dhex hadlaya. Iyada oo aanan doonaynin inay qasto ayay ilinkii qaraacday oo ay weydiisay inay u baahan yihiin shukumaan nadiif ah. Si cara leh baase loogu soo warceliyey, looguna sheegayo inay isaga tagto meesha. Saqdii dhexe ee ay soo galaysay aroortii Janaayo 4teeda 7 saac oo habeenimo ayaa buuq ka yeeray qolka 1046. Martida qolka ku deganaa waxa uu sheegay in qolka uu ka yeerayay buuq sidii nin iyo naag aad u murmaya, laga yaabee 2 qof inay ka badnaayeen. Waxaana la maqlayay shanqarro iyo jiid. Aroortii markii uu waagii baryay, maamulihii hoteelka waxa uu dareemay in taleefoonka qolka 1046 ay fiiladiisu siiban tahay. Wiil ayuuna u diray si uu u soo ogaado waxa jira, balse wiilkii shaqaalaha ahaa isaguna fajac ayuu la kulmay oo ninka ayaa qolka gudihiisa kala hadlay markuu iridda qaraacay oo ku yiri soo gal oo nalalka shid, balse qolku waa uu xirnaa. Wiilka shaqaalaha ah oo ahaa kii Owen qolka tusiyey markii hore dadkii meesha deganaa wuxuu u sheegay in markaa kadib ilinkii xirnaa uu qaraacay, balse lagu dhageystay. Markaasi kadibna uu meesha isagoo jooga ku yiri taleefoonka fiilada geli, balse ma aynan caddeyn in ninka qolka gudihiisa ku jiray uu maqlay hadalkaasi iyo in uusan badan ka lahayn.
balse 2 saac iyo bar markii ay ahayd oo weli taleefoonkii kala siiban yahay ayaa waxaa loo diray qolkii wiil kale oo shaqaale meesha ka ah oo la yidhaahdo Harold Pike. Markii uu ilinkii dhowr daqiiqo qaraacay oo wax warcelin ah uu waayey ayuu furihii shaqada ku furay oo galay qolkii. Waxa uuna la kulmay Owen oo qaawan oo murdux ah iyo taleefoonkii oo dhulka yaal. Wuxuuna is yiri wiilkii, malaha Owen qaadirye ayaa haysa. Taleefoonkii ayuuna fiiladii suray, si dhaqso ah ayuuna uga baxay qolkii. 1 saac kadib xiriiriyihii isgaarsiinta hoteelka wuxuu dareemay in qolka 1046 taleefoonkiisa ay weli fiiladu ka siiban tahay. Waxaana loo diray Randolph si uu u soo eego waxa jira, balse markan qolka ilinkiisa waxaa surnaa tilmaan odhanaysa Don't disturb, oo macnaheedu yahay ha dhibin. Wiilkii waa uu qaraacay ilinkii, balse looma soo warcelinin. Markii uu furay oo uu galay qolkii, waxa uu arkay Owen oo dhulka ku foorara oo labadiisa gacmood madaxa ku haya, baro dhiig ahna ay ku yaalaan dhulka iyo derbiyada. Intaasi ayaa argagax ugu filnayd wiilkii, oo durbadiiba waxa uu wacay booliskii. Daawadayaal, intaa waxaynu ku soo koobaynaa qaybtii koowaad ee dilkii la yaabka lahaa ee ka yaabiyey reer Mareykan. Tan iyo intaynu ku kulmayno qaybta labaad, waxaan idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.